My name is Ibrahim Omar. I'm an Eritrean. I'm a son, brother, a friend. I'm a Muslim. I'm a former refugee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wuxuu ku dhashay Ibrahim dalkiisa hooyo ee Eritrea. Halkaas ayuu ku noolaa carruurnimadiisii nolol farxad leh qoyskiisa. Wuxuuna haystay jacayl waalid iyo nabadgelyo wanaagsan. Asiga iyo qoyskiisa farxaddaas ayay isaga noolaayeen. Laakiin noloshaasi ma sii raagin. Waayo waddanka waxaa ka qarxay dagaal sokeeye. Waxayna dhaxda ka galeen dabkii holcayay ee dagaalka. Wuxuuna Ibrahim Umar in badan indhihiisa ku arkayay meydad badan iyo dhaawacyo daasan geedaha hoostooda iyo wadooyinka. Waxaana waddankiisa ka go'ay korontadii. Waxaana gabaabsi noqday cuntadii. Fawdada ayaa meel walba oo dalka ah ku fiday. Waxaana Ibrahim iyo qoyskiisii soo wajahay gaajo daran iyo nolol xumo. Bulshadii waa wada qaxooti, ma jiro qof aqalkiisa nabadgelyo ku haysta. Ayadoo Ibrahim iyo qoyskiisa xaaladaas ku nool yihiin, ayaa kooxdii waddanka qabsatay. Waxay keeneen nidaam dhalinyaradii ku qasbay in ay waddankii ka tahriibaan, kaa oo ahaa in qof kasta oo dhalinyaro ah xoog ku noqdo askari, waddankana difaaco. Laakiin Ibrahim arrintaasi waa qaadan waayay. Wuxuuna go'aansaday inuu waddankiisa hooyo isaga cararo. Wuxuuna lug ku galay dalka diriska la ah dalkiisa ee Suudaan. Wuxuuna waddankiisa kaga tagay waalidiintiisa, qaraabadiisa iyo asxaabtiisa. Ibrahim ayaa Suudaan ka galay xero qaxooti. Halkaas ayuu muddo ku noolaa. Wuxuuna rajo weyn ka qabay inuu waddankiisa wanaagsanaan doono, asigana uu dib ugu soo laaban doono. Ibrahim ayaa ahaa intuu ku noolaa xeradaani qaxootiga mutarjim. Wuxuuna ka dhex shaqaynayay hay'adaha ka shaqeeya qaxootiga iyo bulshada u badan Eritreaanka ee ku nool xeradaani. Shaqadan Ibrahim waxay u soo jiiday khatar weyn, taa oo ahayd in mas'uuliyiinta Suudaan ugu shakiyeen Ibrahim inuu yahay jaajuus ay soo dirsatay dowladda Eritrea. Kolkii dambena dowladda Suudaan waxay xabsiga ku tuurtay Ibrahim. Muddo ayuu ku jiray xabsigii. Markii dambe waxaa arrintiisa u dooday hay'adda qaxootiga adduunka, waana la soo daayay. Sanadkii 2008 ayuu Ibrahim ka helay dib u dejin dowladda New Zealand. Wuxuuna markii uu tagay dalkaasi New Zealand ka noqday waardiye, laakiin shaqadaasi waa ka ruqsaystay kadib markii qolo burcad ah ay soo weerareen. Ibrahim ayaa galay suuq qudaarta, laakiin shaqadaani way anfici waysay. Wuxuuna u wareegay shaqo kale, taa oo ah nadaafadda. Wuxuuna shaqadaani dambe ka helay lacag uu dirsado qoyskiisa ku nool gudaha dalkii hooyo ee Eritrea iyo mid uu wax ku barto. Ibrahim ayaa kolkii dambe awooday inuu dhammaystirto waxbarashadiisii. Wuxuuna ku biiray jaamacadda Victoria, gaar ahaan kulliyadda culuumta siyaasadda. Subaxii jaamacadda ayuu arday ka ahaa, galabkiina jaamacadda ayuu shaqaalaha nadaafadda ka ahaa. Wuxuuna bartay inta uu jaamacadda dhiganayay shakhsiyaad iyo ururo badan oo ka shaqeeya dhanka siyaasadda. Ibrahim ayaa ka shaqeeyay inta uusan noqon xubin baarlamaan in ay helaan dadka qaxootiga ah shaqooyin mushaar fiican leh iyo xuquuq dhammaystiran. Dadaal iyo juhdi badan kadib, wuxuu Ibrahim ku soo baxay xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee dalka. Wuxuuna ku guuleystay kursi baarlamaan. Wuxuuna noqday ninkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee xubin ka noqda baarlamaanka New Zealand iyo ninkii labaad ee qaxootinimo ku soo gala dalka oo noqda xubin baarlamaan oo firfircoon.